kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aanu ku falanqeynayno siyaasiga ugu saameynta badan ee labadii toddobaad ee la soo dhaafay marka la eego ee lagu biiriyay xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamza waa Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa al-shabaab isla markaana waqti laga joogo 3 sano ku dhawaad sheegay in uu ka soo baxay balse dad badan waxa la yaab ku noqotay Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur markii uu ka mid noqday golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qadka Skype-ka waxa si toos ah ugu jigta Shukri Saciid oo joogta dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Rome waxaan Shukri wax ka weydiin doonaa hadal haynta uu yeeshay Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur marka la magacaabay kadib iyo sida dunida oo idil waqtigan looga hadalayo waa gartay Shukri dhawaan waxaa la magacaabay sida aan la soconay Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo al-shabaab hore uga mid ahaa markii dambena sheegay inuu isaga baxay waxaa jirta in dawladdu ay soo xirtay isagoo raba inuu u tartamo kursiga ugu sareeya maamulka Koonfur Galbeed balse waxaa dad badan la yaab la noqotay markii loo magacaabay wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya hadal hayntaasi bal ka waran abawe waa tahay baashada iyo wasiirka ila yeelanay Soomaaliya ninkan qobow leeyado wax badan baan ka qabay qoraal wayna waxaan ka qabay iyo kow iyo toban asaga iyo hogaamiyayaasha al-shabaab oo aasaasaya ka mid ahaa ninkaas waxa inaan taariikhno si fiican u naq ummadda Soomaaliyeed ay si fiican adduunkuna aan la socdo sida aad u ogtahay atii maaragtay Mareykanku dusha ka saaray 5 milyan oo dollar intii warkeeda oo soo qabta ama soo sheeg waxaa marka loo baahan hal in midda ugu weeye anigu waxaan aaminsanahay al-shabaab lala galo sababtoo ah waxa shabaab waa mad Soomaaliyeed dankan waxaa reegay dagaal sokeey hadda lagu dagaalamo al-shabaab ay kahaaana mar walba dagaal Soomaaliyeed weeye waa Soomaaliyeed oo dhimanaysa oo baaba'aysa in wada hadal waa wax sax wax habboon laakiin waxa loo baahan yahay qaab loo wada hadlayo iyo cidda lala wada hadlayo waxay tahay sidaad adigu u sheegtayba ninkan Mukhtaar Robo al-shabaab asaga ka dagaalay dagaal oo inta shabaab ay isaga iyo gudan madax kale ku kala fogaadeen dagaaleen weligiis yaa ismeel waasaw ku yiri anigu waa ka naastay qalad bayna ahay ummadda Soomaaliyeed gelin baan ka baxay nabad baanan ka shaqay codka soo noqonayo markaan toos u hadlayno kale marka adiga ka Shukri ahaan sideed rabtay ama hanaan nuucay ahayd in la mariyo Sheekh Mukhtaar Robo ka hor inta golaha wasiirada aan lagu soo beerin waxa loo baahan yahay argagixisada ku jira waxa loo baahan yahay nidaam baaj oo dhaqan oo ku sameeyo horta inta dawladda in ugu la gaarin waxa weeye Mukhtaar asaga inuu dambiile yahay oo al-shabaab taasay inuu asagu xigtay inuu ka dambeeyay dhibaatooyin badan qaraxyo badan oo ummadda Soomaaliyeed ay lagu xasuusto ururkan asquddiga u ahaa asaga meel uu weligiis uu ku inkiray ama uu kanaasulay marka horta intaan soo darma ah intaada ku soo dar qofka Soomaaliga ilka xaquuq
xaquuqaha uu leeyahana waxaa ka mida mas-uuliyada uu qaatay oo dhiigga ummadda Soomaaliyeed na in uu xaquuqdeeda laga gudo oo laga jaaseeyo dhibaatada uu ummadda Soomaaliyeed u geystay dembigiisana uu marka horeetole lagu maxkamadeeyo laga jaaseeyo kow horta waxa weeye tanaasulin uu ku yiri anigu waa tanaasulay oo waxaan ka tanaasulay intii qallafsatay gagixisanimada laakiin shukri waxaa jirtay in dhowrkii sano ee ugu dambeeyey al-shabaab iyo isaga ay iska soo horjeedeen oo dhowr jeer waatii aan la soconay in dagaalo ay dhex mareen gobolka Bakool qaybo ka mid ah waxa uu sheegay in fikirkii shabaab markii hore uu qaybta ka ahaa uu ka baxay ka hor inta uusan ku soo biirin dhanka dowladda federaalka Soomaaliya arrinkaasi laftirkeeda soo lama dhihi karo Mukhtaar wuxuu horseed u noqon karaa saraakiil badan oo ka timaada dhanka al-shabaab isla markaana fikirkii ay ku jireen ka baxa waa mid uu u soo socdo wey fikirka inaad oo ka tanaa waa waxaan anaga weynayn kow horta Mukhtaar taas lagama hayo weli lagama hayo laakiin inaad dambigii lagu qaado iyo inaan lagu qaadin waa arrin aan ka wada madaxweynuhu afin karaa qof laakiin arrintan sida loo wajahay yaa qalada tahay ummadda Soomaaliyeed kuwii dhintay iyo kuwa nool ku tahay waxayna dhibaato tahay dowladda lafteeda iyo xasiloonida waddankay dhibaato ku tahay marka sirta qarankood in gacanta loo geeyo golaha wasiir lasoo fariisiiyo dowladda sirteedii uu ogaado aan argagixisay ku jiri jiray tanaasulin oo dhan iyo xadgudub ugu tahay xadgudubkaasna waxaa nagu sameeyay annaga dowladda federaalka xasan sheekh maxamed hogaaminayo dimuqraatiga soo doortay iyo ra'iisul wasaaraheeda xamse iyo arrintaas ummadda Soomaaliyeed u haysata aniga al-shabaab waxaan rabaa hal inaan kuu sheego inaan la xaajoodo waxba kama qabo laakiin al-shabaabka hogaamiyeyaashiisa iyo kuwa asaga ka mida inta lala xaajoodo haddii marka heshiis inta lala galo xabad joojin in ay sameeyaan ummaddana ka soo qaybgalaan dowladda maxaydeen ka siiyo wax kalatee waa uga habboon la siiyo hadduu ka tanaasulahay inuu Soomaaliyeed shukri haddii aad la socotay khudbad shalay uu jeediyey Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur waxa uu bulshada munaasabada ka soo qayb galay uu ka hor sheegay in uu u baahan yahay in la cafiyo isla markaana fikirkii uu hore ugu jiray uu ka soo baxay laga bilaabo waqtigan uu diyaar u yahay in uu isku keeno dhammaan firqooyinka dhanka diimaha ee Soomaalidu ay kala aaminsan yihiin mid quran uu ka wada dhigo arrinkaasi marka la eego soo lama dhihi karo Mukhtaar hadda fikirkii uu qabay waa uu ka tanaasulay maya horta anu waxaan arkaa shir waliba dadkiin oo mooyin waari ka mid yahay isagoo ka hadlaya aflaga iyo kibirka hadlaya oo ka iska dhigaya in dambiilay laga galay teeyay waxa uu tanaasulid iyo wax jifin jixa oo teeyayna wadaatay ma jiro asagaaba dacwo ummadda Soomaaliyeed oo dhahaya dambiga gal aad iyo aad baan ka xumahay horta dad mas'uuliyiin oo xilal waaweyn soo qabtay oo annagu aan xushmad ku hayno sida Jawaari oo kale inta munaasabadan arkiis uu qabsaday ay tageen ay saartay uu jahan midaan adigu sheegaysid Mukhtaar ma aha intuu soo taago wadaado waa ka taasoo keenay ku keeni kara al-shabaab asaga la dagaalansan wuxuuna kula dagaalay baawerka siday u maamuli lahaayeen buu kula dagaalamay maslaxad ummad Soomaaliyeed kuna u dagaalamay taasna asaga uma saamaxayso inuu maaragtay uu Soomaaliya hoggaankeeda qabto asagoo intaasoo dhiiga daadiyo intaasoo dhibaato geystay ma fahantay marka annaga ummadda Soomaaliyeed xaquuqdeedii adiga xaquuqdaadii shacabka Soomaaliyeed xaquuqdooda kuwii dhintay
karaamadoodii iyo sharaftoodii markii ninka intaasoo dhibaataa la geystay lagu abaalmarinayo inuu wasiir noqdo see wey soomaaliyaa la rabaa in baabi'iyo shacabka ummadda soomaaliyeedna waxaa la rabaa in laga hadiyo lagana fogeeyo raadignimada kala dambaynta tixgelinta nabadaba marka waxaa dadka khaldan baa dadka loo haya oo laleeyahay argagixisa heer fiican ka mustaqbal siyaasadeed oo shukri dhinaca kale haddaan ka fiirino mukhtaar dhanka al-shabaab waxa u qaabilsanaa wacyigelinta iyo dadka inuu jiheeyo hadda dhanka dowladda marka uu yimid laftirkeeda waxa uu sheegay inuu jihayn doono dhalinyaro badan islamarkaana fikirka uu halkan kasii wadi doono marka sow ma noqon karto mukhtaar ama uma qalmo haddii fikirkii uu kasoo tegay diyaarna u yahay in dhalinyaro badan uu jiheeyo iyo sidoo kale ciidamada in xilkan loo doortay u qalmo maya sababta waxaa diinta loogu dhiibaa qalad diinta loo annagoo dhan dadaan nahay al-shabaab iyo karobow diinta ay aaminsan yihiin ma aha mid soomaaliya lagu hogaamin karo midna dad anshax bariga dha oo soo jiidan kadha ma aha waxaa la sameeyey qalad baa la sameeyey waana in laga noqdo weeye sababtoo ah waxa weeye mujaajo oo kalsooni soomaalina kuma qabo dee adduunkuna kuma qabo ma fahantay siduu u keeni karana ma jiro al-shabaab keeni karo asagaa intuu la heshiin lahaa deebuu u keeni karaa waa maba waxaan ku weydiinayaa shukri dowladda soomaaliya dhowr jeer hore waxay ku celisay in saraakiisha ugu soo sarreysa al-shabaab haddii ay yimaadaan halkan la soo dhaweynayo islamarkaana xitaa awood qaybsiga haddii ay diyaar u yihiin si dalka nabad uu u noqdo marka arrinkan dowladda hadda ay samaysay soo horudhac uma noqon karto in saraakiil kale oo al-shabaab ka tirsan ay yimaadaan oo kalsooni iyagoo ku qaba in dowladda aysan waxba u dhibayn sababta waxa weeye shabaab in lala hadlayo la xaajoodo xabad joojin la xiido oo ay ka tanaasulaan oo ummadda soomaaliyeed iyo institutionka ka soo mid noqdaan waa wax fiican markay taas dhacdo yaana maaragtay lala heshiina oo ummadda ay ka soo ninaan al-shabaab oo la dagaalo sida wasiirada loogu abaalmarin karo maxay tahay meesha al-shabaab ninkan kama tirsana dowladdu wadahadal al-shabaab lama samayn dowladdu kama taqanin oo nooma sheegin shacabka waxa ay uga leedahay ninka magacaabo iyo wuxuu soomaaliya kama maarmaan u yahay xabsi bay ka waa loo qabay si dagajaarka golaha wasiirada taas shax siyaasadeedna ma istiraam iyo ninka lama maxkamo ninka waa la xiray buu ku jiray dad sano in la maxkamadeeyay ahayd ma maxkamaday siyaasad laakiin warqad maxkamadeeda soo baxday oo in dembi la-aan u yahay caddaynaysa see dembi la-aan oo maana ma isku arkiga ninkan al-shabaab isagaa qirana ka hadlaya maxkanka raadinayay asoo sano oo lacagadiisa fadhigay adiga meesha ma aha meesha oo maka ma aha maka inta dadka dembilayaasha tagaan dowladda federaalka oo xajka ma aha xajka inta dambilugta inta soo qabaysto amtibisi soo mariyo soo fariista dowladda federaalka la soo oo inay shacab eegto cadaalad loo soo ma aha inay iyo dadka iminkaada intay soo qaado ay wasiirka hadday rabaan oo rabaan ayaan cafiyaan si kama dhigi karaan see wey ugu dambeyn marka dowladdan way cusub tahay waqtigeeda jirtaa golihii wasiirada dhowaana lasoo magacaabay waa la ansixiyey xillikii waa ay la wareegeen talada ama fariinta aad u dirayso dowladdan cusub maxay tahay kow waxa weeye arrinta mukhtaar roobow in ka saaro wey soomaaliya cid aad jidho awal wadan furtaahay ahayd wadan xaq inay tahay oo aan ilaalin abmaaquus dadnimada iyo midda iyo midda liisaan meesha ka muuqda
Soomaaliya waxa Afrikayna iyo mar go'doon la international هذا ما يوعي مختار روو العكس Soomaaliya ilaa inta marti bay qaadataan adduunka ba lacagtii ma mukhtaar waa lacagtiina kamshaar ka bixin madaxa in laga rabaa ma fahmin aad bay u mahadsan tahay Shukri Saciid oo magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ku sugan ayay ahayd oo qadka Skype-ka si toos ah aan ugu wareysanaynay Shukri waad ku mahadsan tahay waqtigaaga waa mahadsantahay badan waligeeda dhamaanin biyaha ku jiran yaraanin soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow welcome Carwo Khayraad waxaan idin keenay jiifafkii ugu dambeeyay ee Carwo Khayraad Khayraad waa wax walba haye wax walba waad ka helaysaa welcome Khayraad furniture qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo qalabka yaala halkaas quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso Khayraad baad ka heshaa qalanjadaada dhaxgee qadiyo koob iyo roog wax kasto qol la keeno Khayraad waa ku diyaar qalabaynta xafiiska qalabaynta hadda waa qalabaynta xafiiska sharaxaada qudheeda Khayraad baa ugu sarreysa gabadhii qiimo sareyso halka ay ku qanacayso Khayraad weeye ninkoow qulqul oo hadda gaar Khayraad waa ballanteena macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee Khayraad furniture ee ku taala dabka kasoo horjeedka hotel Dayax waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shashada saaran badan waligeeda dhamaanin biyaha ku jiran yaraanin